أن قبرك وحلت الماما حديث إمام الترمذي وصاصاري شيخ الألباني حسن وكت الماما أيه عثمان بن عفان با waxa la yidhi marka qabri uu soo agtaago ayuu ilmeyn jiray ilaa iyo oohinta ka soo dareerta ay gadhkiisa qoydo markaas waxa lagu yidhi Uthmaanow jannada iyo naartaba marka la sheego sida uma oydida maxaad marka xabaasha la sheego ama aad aragto sida tan ugu oyda dabeetana wuxuu yidhi waxaan maqlay nabiga alayhi salaatu wassalaam al-qabru awwalu manazil al-aakhirah فإن نجا منه فما بعده أيسر منه وإن لم ينج منه فما بعده أشد منه قال وسمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول ما رأيت منظرا قط إلا القبر أفظع منه وحن مغليبو لي النبي عليه الصلاة والسلام وله حباشه وقرقي وهريي آخر حقيقة مركا الله كعيه يعني دار الدنيا عمل كلا شقيسان يوال لقتكي حباشو بيقولوا وقرقي وهريي آخر منكي حباشا كبت بادانة وحي كدن بيا ويكسي فدود يهين حباشا سقفكي بدبادي وايا فما بعده أشد منه وحي كاغسي دنبيانا وكاغسي درين waxaan kaloo maqlay buu yidhi nabiga calayhi salaatu wasalaam oo leh wax ka fool xun oo ka dhib badan xabaal maan arag nabiga oo leh calayhi salaatu wasalaam xabaasha wuxuu nabigu ku sheegay calayhi salaatu wasalaam qofka mu'minka ah ee ilaahay uu xabaasha ugu nimceeyaana ee la tusiyo goobtuu jannada ka gelayay iyo naartii uu ka badbaadayna wuxuu dhahaa rabbi cajil qiyaama saaca ilaahay ou dadaji qiyaamaha ama saacadda dhicisteeda ilaahu soo dadaji si uu reerkiisii iyo ahalkiisii iyo jannadiisii uu helo qofka kaafirka ama xumina wuxuu dhahaa isagoo lagu cadaabayo xabaasha ayuu haddana wuxuu leeyahy rabbi laa tuqim isaaca ilaahayow saacadda ha kicinin yacni aan qiyaamuhu dhicin waayo wuxuu ogyahay waxa ka dambeeya inay kaga sii dhib badan yihin qabrigu waa meel madow siduu nabi moxamed sheegay calayhi salaatu wasalaam xadiiska saxiixayn ku yaala haweenay ka mid ah haweenkii muslimiinta hore oo saxaabiyada oo masaajidkii nebiga fiiqi jirtay ama xaaqi jirtay hagaajin jirtay masaajidka ayaa geeriyootay goor habeena dabeetana saxaabadii waxay necbaysteen inay nebiga calayhi salaatu wasalaam habeennimo toosiyaan sidaa awgeed bay iyagu shaqadii iska qabteen intii la kanfay oo la maydhay oo xabaashii loo qoday baa la soo aasay dabeetana markii waagii bariyay buu nebigu waayay calayhi salaatu wasalaam islaantiiyo wuxuu yidhi meeday waxay yidhaahdeen ilaahay rasuulkiisiiyo waatay intay habeen dhaweyd geeriyootay waanagii soo aasanay bay yidhaahdeen oo inaynu ku toosinaa baanu nacnay wuxuu nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam hallay tusiya xabaasheedii geeye xabaasheedii baa la geeyey markaasuu ku tukaday nebigu calayhi salaatu wasalaam dabeetana wuxuu yidhi إن هذه القبور مليئة ظلمة على أهلها حبالها كني مجد أي كبو حدد كوديكم مدويهين وإن الله عز وجل منورها لهم بالصلاة عليهم إلهنا سبحانه وتعالى وحوق النورنا إياه صلاة دا أن كنت كذيب النبي لي عليه الصلاة والسلام صلاة داسي أن كنت كذيب إلهي سبحانه وتعالى حباش عوق النورنا إياه إلهي انتو حباش عوق النور طهينا غيالو waxa uu nabigu calayhi salaatu wasalaam inoo tilmaamayaa xabaasho marka ugu horreysay qofka bini aadamka la dhego inay kusoo kogto ilaa iyo damma yacni qabashay qabataa culimmadu ay ku tilmaamaan in feedhihiisu ay isweydaaranayaan waana ka nabiga calayhi salaatu wasalaam axaadiista ka sugan ay tilmaamayso inaan weliba cidhidhigaa cidina ka nabadgelaynin xataa uu nebigu ka yidhi calayhi salaatu wasalaam إن للغبر الضغطة لو كان أحد ناجيا منها نجا سعد بن معاذ وحنبه عليه الصلاة والسلام حباشو وحيلادا قبشو أما عديدي أما روشين بيلادا قفكا روشين أيسو وأن عيدنا كبد بادن هدا عيدي كبد بادي سبب النبي سعد بن معاذ بكبد بادي لها سعد وصحابي النبي عليه الصلاة والسلام لدى قال أنصار كتر سنة dabeetana dagaalkii khandaqa ee ku geeriyooday nabarkii ka soo gaadhay ee uu nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam
geeridiisa cad carshuraxmaan baa gilgishay buu nebigu yihi calayhi salaatu wasalaam. carshuraxmaan waa akbar makhluuq, waxa alla uumay wixii ugu weynaa. yacni waxay ku tilmaamaysaa insaanku markuu ilaahay ka cabsado siduu u qiimihiisu u koreeyo ee u weyn yahay, markuu ilaahay subxaana wa tacaala ka cabsan waayana sida qiimihiisu u liito. hadday cidi ka badbaadaysa buu nebigu yihi calayhi salaatu wasalaam, sacad baa ka badbaadi lahaa. in shaa allah axaadiista waa iska dul marayaa, ciddii rabtaa kutubta ha ugu noqoto. in shaa allah waxaan culimmadu saxiix ama xasan ku tilmaamina sheegi maayo. waa ka nebigu calayhi salaatu wasalaam intuu ilmo yara aasay buu wuxu uhi low aflata axadu min damati alqabr lanaja hada asabiy. hadday cidi un ka badbaadi lahayd cadaabta dhuujinteeda iyo qabriga dhuujintiisa ama cadaadiskiisa, hadday cidi ka badbaadi lahayd ilmaha yar baa ka badbaadi lahaa buu nebigu yihi calayhi salaatu wasalaam. xabaashu waxay ka mid tahay dhulka laysku itixaamo, oo nebigu calayhi salaatu wasalaam axaadiista ka sugnaatay waxay tilmaamaysaa marka uu qofka la dhigo xabaasha ee laga dareero inay laba malag u yimaadaan. laba malag oo aragtidooda ay aragti adag tahay, aragti baqa gelinaysa, hadalkoodu yahay nahar iyo dagaal, oo intay soo fadhiisiyaan axaadiista qaarkoodna ay ku tilmaamayaan inay laba madmadow oo buluuya aswadaani asraqaan buu nebigu ku tilmaamaya calayhi salaatu wasalaam. axaadiista qaarkoodna waxay ku tilmaamayaan munkar iyo nakiir in la yidhaahdo. labadaas malag intay soo fadhiisiyaan qofka inay odhan doonaan man rabbuk, maa diinuk, man nebiyuk, waryaa kuu rabbiya, diintaadu se maxay ahayd, nebigaase waa kuma. qofkii alla sugaya subxaanahu wa tacaala markaas allahayna sugee wuxuu odhan doonaa rabbigay waa alle subxaanahu wa tacaala, diintayna waa islaam, nebi moxamedna calayhi salaatu wasalaam waa nebigii rasuulkaan rumaysnaa. qofkii munaafiq iyo gaalina inuu waxba garan waayi doono oo ay markaasi habaari doonaan. waana sababtay ku fasiraan culammadu aayadda qur-aana ilaahay leeyahy yuthabitu allahu aladiina aamanuu bilqowli athaabiti fi lxayaati addunya. ilaahay subxaana wa tacaala qofka mu'minka ah wuxuu ku sugayaa alqowl athaabit fi lxayaati addunya wa fi laakhira, aakhiriya adduunba. yani waxay culammadu ku tafsiiraan inay tahay marka xabaasha la dhigo ayaa ilaahay subxaana wa tacaala baqa gelin kari maayaan malaa'igta tan ad adag ee wax dagaalayaaye waxa ay ku hadlayaan ilaahay baa ku sugaya weedhii saxa ahayd, oo inuu garto in rabbina alle u yahay, islaamkuna diintiisii tahay, nebi moxamedna rasuulku rumaysnaa inuu yahay calayhi salaatu wasalaam. markaasaa samada laga dhawaaqaya la odhanaya an sadaqa cabdi, run buu sheegay addoonkaygii. kii kale ee gaalkaana haah laa adri, ilaa ay ka yidhaahdaan malaa'igtu laa darayta walaa talowt, waxba garan maayo buu odhan doonaa. waa yacni waxba wuu garan waayi doonaa. ilaahay subxaana wa tacaala waxaan ka baryaynaa inuu cadaabka inaga dhowro oo qabriga kuwa sugma alle subxaana wa tacaala inuu inaga yeelo. waana wakhti aan siiba durugsanayn marka qofka la itixaamaya. wuxuu nebigu sheegaya calayhi salaatu wasalaam dadka ka dhaqaaqay kabahooda sanqadhooda inuu maqlayo, jaqafta dadka ka dareeray inuu maqlayaba markay malaa'igta tani u imanaysa su-aalaha kan ay weydiinayso. waxaa kaloo nebigu calayhi salaatu wasalaam axaadiista qaarkood ay tilmaamayaan waagii hore inaanu xabaasha imtixaankeeda hore loogu soo waxyoon, laakiin markii dambe loo soo waxyooday. markaan kusoo koobo axaadiis dhowra ku soo aroortay, laakiin nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu tilmaamayaa in la fitnaynayo dadka oo la imtixaamayo oo xabaasha lagu itixaamayo. qofka mu'minka waa la itixaamaya, qofka kaafirkaana waa la itixaamaya, sida axaadiista daahirkooda ka muuqata. aqwaasha kale ee culammada qaar laga sheegana waxba u banbixi mayno. bal wuxuu nebigu sheegay calayhi salaatu wasalaam xataa ilmaha yar allahuma qihi cadaaba alqabr wa fitnata alqabr, inan yar isagoo aasayuu nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu ku ducaynayay ilaahu kan yar cadaabka xabaasha cadaabkeeda ka badbaadi,
imtixaankeedana ilaahu ka badbaaday buu nebigu calayhi salaatu wasalaam tilmaamay. ahlusunna waljamaaca waxay qabaan cadaabka iyo jannaduba inay ka bilaabmaan xabaasha gudaheeda. xabaashu inay noqon karto rawda min riyaadi aljanna aw xufra min xufari innaar, inay xabaashu tahay rawdada waxaa la yidhaahdaa meesha waasica ah ee biyaha leh ee baadka leh cagaaran ee quruxda badan leh naftu aragtideeda iyo fadhigeeda iyo wax walba ay ku raaxaysato, taasaa rawda la yidhaha fi luga alcarabiya. wuxuu nebigu ku tilmaamaya calayhi salaatu wasalaam xabaashu ama waa rawda, waa meel lagu nimcaysto, ama waa maxay, waa godgododka naareed ka mid a. weedhaasi axaadiis badan oo tilmaamaysa ayaa jirta. nebiga calayhi salaatu wasalaamna mutawaatir, yacni axaadiistu waxay uga sugantahay siday qur-aanka u sugantoo kale, wada sheegaya xabaashu inay cadaabna leedahay, janno iyo nicmona inay leedahay. noloshaada meeshaad nood markaynu xabaasha leenahay, huma amaatahu fa aqbarahu oo dhan baynu u jeednaa. waxaynu u jeednaa waa iskaga mid in xabaal rasmiya lagu geliyo iyo in badda ku liqdo iyo in bahal ku cunaa, waa iskaga mid. ilaahay kama baxsan karaysid subxaana wa tacaala. meel kastoo aad tagto, meel kastoo aad tagtana inta badan naciimkani intiisa badan culimmada qaar waxay ku tilmaameen inuu yahay naciim ruuxiya uu u badan yahay. laakiin mahmaa yakun, ilaahay wuxuu awoodaa meel kastoo aad joogto inuu kuu nimcayn karo, wuxuu kaloo awoodaa inuu ku cadaabi karo. walidaalika umuurtan markaynu ka warramayno xabaasha ku saabsan oo dhan, masaa'ilka caqliyaadka waa la ilaabaa. waxaan uga jeedaa xabaashu waa wax hayba, waa wax qarsoonoo maqan. mar hadday wax maqan tahay, qur-aan iyo xadiis waxyuun baa la dhegaystaa. ilaahay wixii uu ka sheegay ee nebi moxamed calayhi salaatu wasalaam loo soo sheego quraa la dhegaystaa. wax kale oo aad dhegaysan kartaa ama caqligu talo kale uu ku leeyahy ma jirto. mar haddaad rumaysantayna ina allaha calaa kulli shayin qadiir, albaabadaasi say u dhacday iyo waxaasoo dhamma way soo xidhmeen. rabu samaawaati walard ayaa rasuulkiisii arrimaha ka soo faray. sida awgeed ayuu nebigu calayhi salaatu wasalaam axaadiis badani waxay kaga sugan tahay xabaasha in la ysku cadaabayo. qur-aanka nusuusta la daliishada waxaa ka mid a imaam albukhaari 3 aayadood buu tarjamo kitaabka janaa-ista ah cadaab alqabriga, wuxuu 3 aayadood ayuu ku soo aroorinayaa. laakiin 2 aayadood tafaasiir badan baaba la saaray. aayadda sariixii waxay tahay waxaaqa biaali fircawna suuءu اlcadaab annaaru yucraduuna calayha guduwa wacashiya ويوم تقوم الصاacة أdkiluu آla fircawna أshad الcadaab. ilahay wuxuu leeyay subxaana wa tacaala fircawn iyo dadkiisii waxaa haleelay suuء اlcadaab, cadaab kulul oo ilaahay baa qarqiyo, waa la halaagay. waxaa kaloo ilaahay yidhi annaaru yucraduuna calayha guduwa wacashiya, cadaabkaa loo bandhigayaa, loo cardinayaa gelinkii hore iyo gelinka dambaba. oo waa xaggee? waa intuu xabaasha ku jiro. wa yowma taquumu الsaaca, marka ay qiyaamuhu dhacana waxaa la odhan doonaa adkhiluu aala fircawna ashadda alcadaab, fircawn iyo kooxdiisa cadaabka ugu kulul geeya. yacni annaaru yucraduuna calayha guduwa wacashiya, mufasiriinta iyo culammadu waxay ku tilmaamayaan inay tahay cadaabu lqabriga. ilaahay subxaanahu wa tacaala waxaan ka baryaynaa inuu inaga badbaadiyo. waxa kale oo xujaj badan oo sugan ay tilmaamayaan oo axaadiista nebiga calayhi salaatu wasalaam ka soo aroortay ay ka mid tahay in dadka badh cadaabka uu ugu yimaado xabaasha gudaheeda lagu cadaabo. saa daraaddeed buu nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu tilmaamay, caaisha waxay tidhi xadiidka bukhaari, waxay soo gashay islaan yahuudiyada, dabeetana cadaabkay ka warrantay. dabeetana waxay tidhi acaadaka allahu min cadaabi alqabri, bay caaisha ku tidhi, ilaahay cadaabka naareed ha kaa ilaaliyo. caaisha markaa waxay tidhi fasa'alat caaisha arasuula sala allahu alayh wasalam can cadaabi alqabr, oo dadka miyaa xabaasha lagu cadaabaabay tidhi ilaahay rasuulkiisiiyo. qaala nacam, waa lagu cadaabaya buu nabigu yihi, cadaabu lqabri baa jira. dabeetana caaisha waxay leedahay maalintaa wixii ka dambeeyey
waxaan maqli jiray nebiga calayhi salaatu wasalaam oo salaad kasta uu tukanayo ilaahay ka magan gala cadaabu lqabriga. riwaayo kale oo bukhaariyina waxay sheegaysaa cadaabu lqabri xaqun, xabaasha in la isku cadaabaa waa mas'alo dhaba. idan nusuus badan oo saxiixeynka iyo keyrkeedba ku soo aroortay ayaa wada tilmaamaysa mas'aladatan. xadiid ka mida waa ka asmaa bintu abi bakar ay tilmaamayso, xadiidka bukhaari ku yaala. nebiga calayhi salaatu wasalaam istaagay isagoo dadka u khudbadaynaya, dabeetana wuxuu ka warramay fitnat alqabri alatii yuftatanu fiiha almaru, imtixaanka xabaasha la ysku itixaamayo. markuu ka warramay baa dadkii buuqeen, waa la wada naxay oo waa la qayliyey. markaasaan waxba maqli waayey bay leedahay. dabeetana markay qayladii degtay oo aan hadalkii nebiga fahmi kari waayey, ayaan saxaabi xagga soka joogaan waxaan ku idhi bay tidhi, ay baaraka allaahu lak, maada qaala rasuulu llahi sala allahu alayh wasalam aakhiru qowli. waar markii ugu dambaysay allah ku barakeeye wixii uu nebigu yidhi ii sheeg baan ku idhi bay tidhi, weedhii ugu dambaysay uu nebigu lahaa. dabeetana wuxuu yidhi, nebigu wuxuu yidhi, qad uuxiya ilaya annakum tuftanuuna fi lqubuuri qariiban min fitnati dajaal. xabaasha waa laydinku itixaami doonaa sidii dajaal fitnadiisiiyo kale ayaa laydin itixaami doonaa. xabaasha markaa cadaabka ka dhacaya, axaadiista qaarkood saxiixa ku soo aroortay waxaabay tilmaamayaan nebi muxamed calayhi salaatu wassalaam inuu maqlayay oo uu dad soo maray. nebigu calayhi salaatu wasalaam xadiidka imaamu muslim uu soo saarayo, xabaaluu soo dul maray. dabeetana isagoo xabaalihii dul maraya xaa'id bani najaar agteeda, reer qoladaa beertooda dhinaceeda iyadoo ah, oo uu baqal uu lahaa fuushan yahay oo aanu la soconna buu leeyahay saxaabiga la idhaha zayd ibnu thaabit, ayay mar qura diday neefkii u fuushana. dabeetana nebigay ridi gaadhayba. meeshana buu yidhi 5, 6, 4 meelaha, yacni dhowr xabaalood baa ku yaalay. baqashii uu nebigu fuushanaa baa diday oo nebigaba tuuri gaadhay calayhi salaatu wasalaam. markaasu wuxuu nebigu yidhi, man yacrif asxaaba haadihi alaqbur, war yaa garanaya xabaalaha kan cidda ku jirta. nin baa wuxuu yidhi, aniga ilaahay rasuulkiisiiyo. markaasuu nebigu wuxuu yidhi, famataa maata haaulaa'i, goormay dhinteen kuwa kani? maatuu fi lishraak buu ku yidhi, ilaah waa kuwa gaalnimo ku dhintay. nebigu ku leeyay calayhi salaatu wasalaam, nebi allo waa kuwa gaalnimo ku dhintay. faqaala ina haadihi alumma tubtalaa fii qubuuriha, ummadatan buu nebigu ku yidhi calayhi salaatu wasalaam, xabaashan ay ku jirtaa lagu itixaamaya, balaaya ku socota. falowlaa an laa tadaafanuu ladacawtu allaha an yusmicakum min cadaabi alqabri aladii asmacu minhu. haddii aanan ka cabsi qabin buu nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam inaydan isba xabaali waayin, ilaahay baan idiin baryi lahaa waxa aan maqlayo inuu idin maqashiiyo buu nebigu leeyahy calayhi salaatu wasalaam. yacnii dadkan la cadaabayo iyo waxa ka yeedhaya iyo dhibta haysata kuwan xabaasha ku jira, haddaanan ka baqayn buu nebigu leeyahy hadhow inaad xabaalahaba ka baqataan oo dadkaba aasi weydaan, haddaanan taa ka cabsi qabin, ilaahay waxaan ka baryi lahaa inuu idin maqashiiyo buu leeyahy nebigu calayhi salaatu wasalaam. waa xabaalahan aynu maalin walba dul marro, waa duul kale oo caalam kale ku nool oo wax la cadaabayo wax la jannaynayaba leh. nebigu calayhi salaatu wasalaam xadiid kale wuxuu ku tilmaamayaa oo bukhaari iyo muslimba warinayaan, ibnu cabbaas waa kale, 2 xabaalood buu nebigu soo maray. markaasuu wuxuu yidhi, innahumaa la yucadabaan, labada tan waa la cadaabayaa buu nebigu yihi, wamaa yucadabaani fii kabiir, wax weyna lagu cadaabi maayo. yacni nebigu wuxuu sheegaya calayhi salaatu wasalaam intuu xabaalo soo dul maray ayuu wuxuu ku yidhi, waryaareh labada halkan ku jira waa la cadaabayaa buu nebigu yihi calayhi salaatu wasalaam. idan nebigu calayhi salaatu wasalaam wuu maqli jiray. isla markaasi xayawaanka hayru thaqalayn nebigu wuxuu leeyahy calayhi salaatu wasalaam, jinka iyo insiga waxaan ahayna waa maqlaan. mararka qaarkoodna culamo badan baa waxay sugaysaa, oo ibnu taymiya kayrkiiba ka mid yihiin, dad badan oo culamo oo hiqaadoo la yaqaana intay xabaalo soo dhex mareen ama inay wax badan ka maqleen dadkaasi meesha lagu cadaabayo. haata tanna waxaaba jira
kuwo maanta culamada badh ay sugayaan oo samee cadabaynta la geliyey, qaar la cadaabaya la sheegay. si kasta ha noqotee ilaahay rasuulkiisii mar hadduu ka warramay, samaacad iyo wax kala toona looma baahna ee nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam baa sheegaya. qaarna waa la jannaynaya.